Soomaaliya waxa ay ku jirtaa xaalad soo kabasho oo dhan kasta ah. Waxa soo hagaagaya adeegyada garsoorka, amniga, maaliyadda, sidoo kale waxa socda dagaal weyn oo dawladda Soomaaliya ay kula jirto musuqmaasuqa. Sanado badan oo ay soo jiitamaysay iminka dawladnimada Soomaaliya waxa ay ku dhowdahay inay caga dhigato. sanad iyo bar uu dalka hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa lagu tallaabsaday guulo waaweyn oo aan halka ku soo koobi karin. guulaha taariikhiga ah ee dawladda Soomaaliya ay soo hoysay waxa kamid ah soo celinta maamulka hawada Soomaaliya oo 27 sano kadib hadda laga maamulo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay waa maxay faa'iidooyinka laga dhaxlay ama guulaha la gaaray waqtiga kooban ee dawladda Soomaaliya ay gacanta ku haysay maamulka hawada. waxa inooga jawaabaya wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar. muddada kooban ee maamulka hawada uu gacanteena ku jiro waxyaaba ugu waaweyn ee noo soo faa'iido inoo noqotay waxaa ka mid ah shaqaalaha lacagta la siiyo. shaqaalaha inoo badan 80 qof lacagta la siiyo oo ah dad professionals ah. lacagtaasi waxay geli jirtay dhaqaalaheeda waddanka Kenya. dhaqaalahaasi hadda wuxuu soo galaa waddanka Soomaaliya, wuxuu galaa dukaamadeena, wuxuu galaa makhaayadaheena, wuxuu galaa dhaqaalaha Soomaaliya ay kobciyaan intuu kobcin lahaa dhaqaalaha Kenya. 2 waxay tababaraan dad badan oo shaqaale ah oo Soomaaliyeed oo ugu talagalay mustaqbalka in ay la wareegaan dad inta aan Soomaalida ahayn. 3 waxaa kor u kacay security iyo amniga kalsoonida lagu qabo hawada Soomaaliyeed. markii laga maamuli jiray Nairobi diyaaradaha soo mara kalsooni badan inuu ayna qabi jirin sababtoo ah waxaan ka fogeyn meesha qalab duqan oo shaqeyn jirnay. marka diyaaradaha soo mari jiray aad ay u bateen, dakhliga naga soo galo uu batay, shaqaalihii joogay ee hore tababar cusub ay heleen moraalkooda kor ayuu u kacay. shaqaale cusub oo Soomaali ah ayaa sidoo kale lagu train gareynay meesha. dhaqaalihii meesha ka soo baxay dadku waxay qaataan waddanka ay dib u soo noqonayaan. marka lama soo koobi karo runtii. waxa kale oo inoo suura galay oo aad muhiim u ah aadna aan loo ogeyn in laga yaabo sanadihii la soo dhaafo dhan waxaa laga hadlayay in hawada Soomaaliya because of safety in Nairobi shaqada ay qabanayeen in la kala qaybiyo ama la yareeyo levelada ay diyaaradaha maraan. marka soo guuritaanka aan xamar u soo guurnay iyo khadadkii cusbaa ee la soo saaray waxay ka hortagtay khatartaasi Soomaaliya ku soo wajahneed maanta. oo ka muhiimsan waxa kale oo dhan jidadkii Soomaaliya la filayay inay lumin doonto oo loo dhiibi doono wadamada dariska ah ee tartan actually ugu jireen. marka imaanayna tartan waxay ugu jireen in jidad iyo qaybo ka mid ah Soomaaliya hawada ay maamusho lagu wareejiyo wadamo kale. laakiin marka aan soo guurnay qalabka cusub aan isticmaalayno waxaa la publish gareeyay air cusub baa la publish gareeyay jidad cusub oo sidii hawada Soomaaliya loo maray frequency-geeda iyo waxa soo dhan. marka alxamdulillah wax badan oo noo soo kordhay wax hore aan u haysanay oo laga qaatay malaha. sheekadii in wax la kala qaybiyo ahaan meeshaas ay ku dhamaatay in wax waddan kale lagu wareejiyo. dhibaatada ugu weyn waxay ahayd diyaaradaha isdul maray labada dhinac oo kala socdo kale. proposalada markaan imaanayna dawladda cusub imaanaysa waxay ahayd in jidadkaasi hal dhinac laga dhigo. hal dhinac hadii laga dhigana ay diyaaradaha inay isdul marin isku meel marin. marka dhibaato badan ay arrintaasi noo keenay. diyaaradaha yaraan lahaa kharashka hadda naga soo galana aad ay hoos ugu dhici lahaa. hawada Soomaaliya waa laga fogaan lahaa qof alla qofkii diyaaradii ka fogaan karto way ka fogaan lahayd. marka alxamdulillah waxa soo dhan ka badbaadnay sanadkii barkii aan joognay. waxyaabaha sida weyn ay ugu dhagtaagayaan shacabka Soomaaliyeed lana filayo in dawladdu ay ku guuleysato wax ka qabashadooda waxa kamid ah soo celinta diyaaradii Somali Airlines. wasiir Omar ayaan weydiinay bal inuu shacabka u sharaxo halka uu marayo dadaalka loogu jiro soo celinta Somali Airlines iyo waqtiga la filayo in ay diyaaraddu shaqo bilowdo. diyaaradda Somali Airlines wuxuu inoo ahaa priority labaad wasaaradda inoo ahaa. kan koowaad waxay soo wareejinta hawada. midka labaad wuxuu inoo ahaa Somali Airlines
Somali Airlines intii ay xukuumadii hore ee Soomaaliya koob iyo sagaashankii wixii ka dambeeyay waxaa dhacay in isbedelay diyaaradaha businesskooda oo dhan ay isku bedeleen waxaa cad in diyaaradaha ay dawladaha iska leeyihiin sida loo maamuli jiray wax badan iska bedeleen marka iyo anagoo taas tixraacayna ayaa waxaan bedelnay waxaan sameynay shuruuc iyo waxaan update ku sameynay Somali Airlines ee hore shuruucdiina waa update ay ku sameynay si ay ula jaanqaadaan adduunka hadda jirto oo kale si ay ula jaanqaadaan marka alxamdulillah taas waa sameynay waxaan heshiisiyo negotiations la galnay shirkado diyaaradeed ayaan la galnay nasiib darro dhacdadii foosha xumeed ee Zoba markay dhacaysay waxaan meel fiican ayay inoo maraysay dib haddana markaan u bilaabnay midda labaad ee ku xigtay ayaa labadaas ayaa horta dib inooga ceshay wax badan haddana negotiation badan ayaa noo socda wadamo ayaa negotiation inoo socdaa shirkada ayaa waxaa noo socdaa hadda wadahadal la fiican waxaan rajeynaynaa insha allah tacaala mana rabo runtii inaan ballanqaadi sameynaan oo wixii aan weli saxiixin oo gacanta ku haynin laakiin waxaan rajo badan ka qabnaa insha allah tacaala sanadkan hadda bishiisa August aan ku jirno dhammaadkiisa ama inta uusan dhamaanin inaan wax badan ama diyaaradii ay timaado ama aan aad ugu dhownahay inay diyaaradda shaqa bilowdo haddii ilaahay ka raali noqdo waxaan aad ugu kalsoonahay laakiin hadduu ilaahay ka raali noqdo sida hadda aan ku socono xaaladda hadda aan ku jirno marka aan ku qiyaaso xajka hadda dadka aadayo xajkiisa kale inay Soomaali Airlines isku aadaan waa sida realistiga ah ee saxda ah hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaa laga yaabaa dadka qaarkii inay waqti dheer ula ekaado laakiin in la sameeyo infrastructure shuruuc shaqaalihii haddana aan kula hadlayo waxaa inoo baxay shaqaale tababar ugu socdo Somali Airlines oo tababar ugu socdo wadamo kale ayaa jira hadda aan kula hadlayo marka waxaan sameynaynaa wax alla wixii loo baahnaa in diyaaraddaas ay successful as we speak hadda dadkaasi insha allah tacaala marka way baxayaan tababarro ayaa loo wadaa waa dadkii ay ka mid yihiin shaqaalihii hore pilotyadii iyo ay ka mid yihiin ayaa hadda iyo crewgii cabin crewgii sidoo kale waxaan rajeynaynaa mar dhow inay insha allah tacaala iyagana ay tababarro soo qaataan ayaan rajeynaynaa inta aan diyaaradaha iyo ka diyaarinayno marka shaqadu way socotaa in garoon diyaaradeed oo ku yaala Soomaaliya uu shaqeeyo habeen iyo maalin waa wax aysan arkin dhalinta dhalatay wixii ka dambeeyay burburka nasiib wanaag 29ka bishii May sanadkii 2017 ayaa dawladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ku guuleysatay in suuragal laga dhigo sidii uu habeen iyo maalin u shaqeyn lahaa garoonka caalamiga ah ee aadan cadde Muqdisho kadib markii dawladdu ay soo iibisay qalabkii loogu talagalay ee garoonka u baahnaa wasiirka wasaaradda duulista hawada ayaa faahfaahinaya isbedelka ku yimi garoonka diyaaradaha ee Muqdisho markii uu habeen iyo maalin shaqo bilaabay garoonka aadan cadde waxaa nasiib darro ah in markaan ka soo baxnay dagaalkii Suuqay markaan ka soo baxnay dawladda isku xirxiran aan lahayn oo markaan dawladdan iimaanaysay inuu garoonka habeenkii dansanaa oo aanan laga shaqeynayn 4 galabnimo laga rabo jiray alxamdulillah muddo yar gudahood waxaan ku guuleysanay inaan garoonka u sameyno nalal kaliya maaha waxa aan gelinay shuruuc baan u sameynay shaqaalihii baa la diyaariyey immigrationka la diyaariyey waxa la amniga ayaa laga shaqeeyey in habeenkii la geli karo laga bixi karo si secure shuruucda oo dhan oo aanan la jibin inuu shaqeyn karo airportka wuuna shaqeeyaa muddo dheer uu shaqeynaya international airport uu furan yahay diyaaradaha iyaga ayaa marka xor u ah inay habeenkii ama ka soo degaan ama maalintii ka soo degaan schedule-kooda ay ku xiran tahay xilliyada ay rabaan waxaa nasiib wanaag ah in marar badan naf lagu badbaadiyay habeenkii diyaaradda looga qaado dad aad u xanuunsan Soomaaliya hadda laga qaado iyagoo immigration-kana joogaan hay-adihii amniga oo dhan ay joogaan oo ay dhex fadhiyaan airportka in habeen afar saac ama 10 habeenimo qof isu u yaqaan halkan dad laga qaado airlifting uu sameeyo isbitaallo wadamo kale loo qaado waxaa jira in diyaaradda iskood soo baxo oo waqtigooda schedule-kooda ku soo hagaagsan oo waqtiga rabaan ka soo degaan airport ay habeenkii ka soo galaan marka diyaaradihii waxay siisay kalsooni taa diyaaradaha darisku socday meelaha u socday marka ay wax dareemaan taa inay habeenkii ku soo degi karaan in ganacsiga habeenkii uu furay diyaaradaha sida la socotiin
habeenkii marka ay socdaan benziinka ku baxo uu ka yahay kan maalinta ku baxo marka diyaaradaha cargo oo kale iyo waxa dhan waxay shaqeeyaan habeenkii ay yimaadaan marka wax faa'iidooyin badan oo tiro badan ayaa nooga soo kordhay alxamdulillah waan rajaynaynaa hadda ku shaqeeyaa airportka subax 6 ilaa 10 ayuu officially u furan yahay international u furan yahay hadda waxaan rajaynaynaa inaan taas bedelno haddii ilaahay ka caalmado oo 24 saac lagu soo degi karaa airportka haddaba laakiin internationally inaan u furno aan idhaahno meeshii 10 uu ka ahaa waa saacad kasta ayaa laga soo degi karaa iyo waqti kasta inaan hadda internationally u furno si diyaaradaha aan rajaynayna ee ajnabiga ee waddanka tashaqa bilaabi doona dhammaantood xilliga rabaan ay kusoo degi karaan dekadda muqdisho ayaa sidoo kale lagu dhawaaqay inay shaqaynayso habeen iyo maalin waa horumar weyn in dekaddu ay shaqayso 24 saac balse waxaa dhaliil ka jirtay gaadiidka xamuulka qaada ee dekadda ka saara badeecadaha la soo dejiyo kuwaas oo la saaro tan ka badan ama xamuul ka badan intii ay qaadi jireen maxaa ugu qorshaysan dowladda Soomaaliya gaadiidkaasi si looga hortago khatar ka timaada 8 bisha March 2018 waxaan soo saarnay shuruuc arrintaasi ku wajahan dhammaantood waxaan sameynay MOT-ga oo loo yaqaano faxsiga baabuurta sida lagu baaro inuu baabuurkaasi dad qabo inuu mari karo jidka sharcigaasi oo hore u jiray laakiin aan marnaba la qaban jirin baabuur kasta intii lacagta laga qaado boono la siiyo iska socon jiray oo la dhihi jiray sanad hadda ma shaqayn kartaa sharcigaasi waqtiga dib u habeenayaan ku sameynay marka waxaan bixinay qandaraasyo garaashadii waan diyaarinay baabuur kasta oo joogo waddanka sanad kasta uu marayaa haddii ilaahay ka raado baaris dhab waxaa la baaraya breegyadiisa waxaa la baaraya inuu nal ka jaban yahay waxaa la baaraya inuu baabuurkaasi jidka uu istaahilo inuu maro baabuurkii aan u istaahilin jidka inuu maro waxaa la siinayaa sida iyadoo ku xiran tahay marba dhibka uu qabo baabuurkaasi inta uu la egyahay kuwa socon kara muddana waxaan siinaynaa digniin kuwa aanan socon karin ama amniga waddanka iyo dadka shacabka ku ah ama propertieska sida guryaha iyo jidadka looga baqayo inay jabiyaan in aan jidka ka saarno sharcigaasi waa diyaar ugu yaalaa 8 March ayaan diyaarinay bulletin official ku jiraan dowladda baarlamaanka sharcigaasi markii update ayaan ku sameeyay waxa kale oo xamuulka baabuurta sidoo kale isagana waxaan ku sameynay update baabuurka tankiisa loogu talagalay hal ka badan inaan la saarin karin waxaan keenaynaa airport dekada miisaanadii dekada kaliya ma iyo meelaha magaalada laga soo gado ay ka bixitaankeeda annagoo taas rabna haddana inaan usii gudbino gobollada oo dhan aan usii gudbino taas nafteeda sharciga ku jira sharciga waxaa kale sharciga wuu gudbay already oo ma aha sharci hadda aan sameynayn implementationkiisa ku jirna bishan August dhexdeeda waxaa bilaabanaya MOT-ga oo rabnay inuu July bilowdo bishan hadda ku jirno bilaabanaya dowladda baarlamaanka miisaanku mardhow ay wasaqada bilaabanaya marka shuruucdii waan bedelnay waan update gareynay waxyaabo badan oo ka sameynay license-kii waa aragtay waa electronic isaga wixiisa dhanteetiisa amniga iyo qolo kasta way arki kartaa baabuur kasta iyo qofka iskale iyo waxaa soo dhan telefoonka ayaa laga arki karaa marka updates tiro badan ayaan dhinacaas ka sameynay alxamdulillah marka shuruucdu waa diyaar implementationkiisana hadda ku jirta doorashadii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kadib waxa uu booqasho ku tagay dalka Kenya booqashadaasi ayaa keentay in meesha ay ka baxdo mid ka mid ah caqabadihii dhinaca safarka ee ay la kulmi jireen dadka Soomaaliyeed marka ay isaga kala gooshayaan Soomaaliya iyo Kenya labada dal waxa ay kala saxiixdeen in meesha laga saaro baaritaan dhexe oo lagu sii mari jiray deegaanka Wajeer heshiiskaasi ma yahay haddaba mid si wanaagsan u shaqeeyay sidoo kale kalsooni intee leeg ayaa lagu qabaa ammaanka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waa kan mar kale wasiir Omar oo arrimahaasi ka hadlaya qofkii safray oo Wajeer tagay intuu Muqdisho ka baxay ama meel kale ka tagay Wajeer maray Wajeer ka sii baxay oo Nairobi aaday kaliya ayaa garanaya caqabada ay arrintaas ku leedahay ummadda Soomaaliyeed runtii qof looga sheekeeyay ma fahmi karo aniga ayaa familkayga la baray oo dhibaatada ka Soomaaliyeed meesha si kaysatay nasiib wanaag dowladdu way ku adkaysatay waxyaabo ugu horeeyay ku adkaysatay ay ka mid ahayd in si toos ah Muqdisho looga baxo oo looga dego
Nairobi arrintaasna ay ku guuleysatay sababtay ugu guuleysatay marka maxay tahay sababtay ku guuleysatay waxay tahay oo ugu weyn waxay dowladda Kenya ku qanacday amniga iyo baaritaanka aan ku sameynay airportka Muqdisho inuu yahay mid ama la eka Nairobi lagu sameeyo ama ka sarreeyo dhowr jeer ayaa waxay inoo yimaadeen security assessment lagu sameeyay airportka Muqdisho inta waxaan ku faraxsanahay inaan raahno ama waxaan la mid noqonay wadamada ugu fiican dariska iyo marka loo fiiriyo ama aad ayaan uga sii horeeyay baaritaanka ka qabano airportka Muqdisho iyo amniga sida loo baaray iyo sida loo sugo iyo diyaaradaha runtii way ku qaracday dowladda Kenya sidaa awgeed ayaa waxay u ogolaatay in diyaaraddu ay ka baxdo si toos ah Muqdisho oo ay tagto Nairobi sidoo kale waxaan ka shaqeynaynaa haddana in diyaaradaha ka baxa meelaha qaarkood kale ee Soomaaliya toos u aada Nairobi iyagana inaan sii marin wajahan inaan sii marin waxyaabaha meelaha ay dadku ku dhibtoodaan marka la rabo in laga hadlo halqabsi ayay noqotay meesha wajahan ayay noqotay ay dadku yiraahdaan alxamdulillah taala dowladda wixii ugu horeysay waxyaabay ugu horeeyay ugu faa'iidada badnaa ee qabatay ay kamid ahayd inay wajahan naga leexiso toos dadkii ay u tagaan meesha u socdeen waddankaas waxaa xusid mudan in isbedel weyn uu ku yimi sanadkan arrimaha xajka gaar ahaan qiimaha iyo diyaaradaha la raacayo ee ay xujaydu ku safrayaan waxaa la ballaariyay diyaaradaha qaadaya xujayda oo markii hore ku koobnaa 2 diyaaradood oo kaliya taas oo qiimaha xajka kor u sii qaaday dadaal badan oo ay samaysay dowladda Soomaaliya sanadka qiimaha xajka hoos ayuu u dhacay wasiir Omar ayaan su'aalay diyaaradaha xujayda qaadaya iyo isbedelada kale ee ku yimi arrimaha xajka arrinta xajka waxay ahayd arrin muddo dheer diyaarado soo dadaalay iyo dad soo dadaalay oo shacab oo Soomaaliyeed ganacsata ah ay maamuli jirtay oo arrin wanaagsan ayay ahayd marka si loo abuuro competition si loo abuuro dad kala duwan oo sameyn kara hawshaasi loogu fududeeyo shacabka waxaana waxa loo sameeyaa in shacabku loo fududeeyo choices badan la siiyo option badan la siiyo alxamdulillah sanadkan waa sanadkii ugu horeeyay waana lagu guuleystay waxayna noqotay diyaaradaha iyo inta cusub ee soo gashay intii horeba waxay runtii ka faa'iideystaan dadka ugu dambeeyay ku guuleystay arrintaasina waxay noqonayaan shacabka Soomaaliyeed sanadkan baan insha Allah arkaynaa waxaan rajaynaynaa sanadka dambe si ka sii fiican in loo sii maamuli doono ugu dambeyntii wasaaradda duulista iyo gaadiidka hawada oo kamid ah wasaaradaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya kaalin intee leeg ayay ku leedahay dakhli soo xiraynta dowladda wasiirka wasaaradda ayaa ka jawaabaya wasaaradda laba dakhli ay ugu waaweynaya dhinaca airportka dakhliga ka yimaada dhinaca gaadiidka dakhliga ka yimaada iyo dhinaca overflights waxa la yiraahdaa diyaaradahana dul maray serviceska loo qabto marka saddexda marka la isku daro waxaan filayaa in aan nahay wasaaradaha maybe canshuur marka laga reebo wax canshuur lagu keenay inta kale waxaan haddii aanu noqonin wasaaradda koowaad wasaaradda labaad runtii aad ugu faraxsanahay taasna waxaan rajeynaynaa insha Allah taala mustaqbalka dhow inaan shaki gelino noqono wasaaradda koowaad ee dakhliga aad u kordhisa barnaamijkii intaas ayaan ku soo koobaynaa waxaad noo soo diri kartaan su'aalo la xiriira shaqooyinka loo xirsaaray ee aad u qabtaan wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee dowladda haddii alla idmo waxaan ku dadaali doonaa in aan gaarsiino dareenka shacabka mas'uuliyiinta xilka haysa si ay uga soo jawaabaan su'aalaha